بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد يوسف wuxuu ka mid yahay odayaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Jarmalka waxaana uu yahay nin rugcada ah oo u soo joogay Soomaaliya muddo dheer ciidamadii xoogga dalkana uu ka tirsanaa runtii waxa uu jecel yahay inuu wax yar ka yiraahdo warbixin yar oo ku kooban oo ku saabsan waxyaabihii uu soo maray marka dadweynaha ayuu rabaa inuu u baahiyo ku soo dhow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan marka ugu horeysa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa golayaasha baarlamaanka adigu ummadda inta dowladda federaalka dhammaantood inta xukunta marka ugu horeysa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba ilaa dibad iyo gudaba dalka dibadiisa iyo gudihiisa ilaa raas Kabooni ilaa iyo raas Casayr. waxaan idinka doonayaa dhibaato yar baa dhacday. dhibaatada yar waxa weeye mid aan anigu iska keensaday ma ahayn, waa mid wixii dadka ku dhacday unbay ahayd. magaalada Xamar bay ahayd, waxayna ahayd reer baa ii deganaa, caruur baan lahaa. dabeetana dagaal sokeeyaa meesha awal waxaan islahaa dhibaata ka dhici mayse dowladdu iyada isbedeli. dabeetana waxaanu aragnay dadkii oo ku kala qaxay meeshii. reer baan lahayo reerka tunka kuma qaadan karahayn, calooshana kuma qaadan karahayn, meel alaale waxaan kala qaadi karayana ma lahayn. reerkii waxaan meel garaashaan aaday. garaashkaa waxaan ka helay gaari baariyahoo iska kharaab oo beri hore ay dowladdu leedahay oo gacda. xeradaas waxaa la oran jiray xeradii howlaha guud ee safaaradda Maraykanka ka soo horjeeday. gaarigaas baan aan jiitay. dabeetana waan iska habaystay jug baan indha ma lahayn, baytariyaal ma lahayn, afar taayiroo quru ku taagnaa. dabeetana gaarigii adigu dadkii meesha anigii iyo reerkaygii iyo dadkii meesha joogay oo dhan baa ku qaxay. dabeetana Kismaayaan tegey. indha iyo waxaan u soo yeelay dadkiiba indha iyo taayiro ii geliyo dadkiiba intii dib haddana ugu soo noqday. mar kalaan qaaday, haddana mar labaad baan qaaday, mar saddexaadkaasaan ku tegey Kismaayo. dabeetana waxaan ka aaday meeshii anigu aan u dhashay oo ah gobolka Cayn Buuhoodle. dabeetana gaarigii adigu muddaan watay, gaariguna gaari isbeerkiisa la helaya ma ahayn. dabeetana gaarigii Ethiopian kaga yar shaqaysan jiray. gaarigii waxay igu qabsatay dowladda Ethiopia. milix baan u qaaday meesha Dirlaba la yidhaaho, halkaasay igaga xidheen gaarigii. 7 bilood bay iga haysteen. nin reer saxaaq oo dheel ku lahaa meesha cunto ah ayaan iska biishan jiray, isagii baa na caawiyey. dabeetana markuu i caawiyey adigu lacag dhowr iyo 40 kun ayuu igu yeeshay. ninkii adigu wuxuu ila dacwiyaba gaarigii baa laysoo siiyey isagoo saliidii cunaya oo xaaladdu ay aanuusan dhaqaalo dambe uusan lahayn. gaarigii waxoogaa yar baa siistay. ninkii udheelka lahaana waxoogaa gu lahaa baan ka siiyey. waxoogaagii yaraayee kalena anigii inamadii ka shaqaynaynayba ay nagu baxday. marka waxaan doonayaa madaxweynaha laga bilaabo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa, baarlamaanka, wasiirka xaq sawirka ama golaha wasiirada, shacab weynaha. xoolahani waxay ahaayeen xoolo qaran. gaarigu gaadaa buu ahaa, dowlad baa iska lahayd. anigu ciidan aan ahaado ciidanka aan ahaa waxaan ku lahaa dowladdan xuquuq ku lahaa. xuquuqdaydii ilaah baa meeshii aan u doonan lahaa ilaah baa ii haya, wixii wax ii geystayna ilaah baa ii haya. laakiin anigu dadka gaarigan bacdama aanan tuuganimo aanan ku doonan ay ahayd naftaada badbaadiyo baxso oo nafa badan aan ku badbaadiyey. waxaan doonayaa shacabka maqlayo inaad sii sheergaraysaan meel aad joogtaanba oo aad i saamaxdaan. dowlad ugu horeyn madaxweynaha, ku-xigeen ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa, baarlamaanka labada gole hebel xaashi iyo
iyo mursal waxaan idinka codsanayaa golaha baarlamaanka oo dhan inay wada cafiyaan iyagaa dalka ka taliya macnaa maxamed yuusuf adiga waxaad leedahay xilligii la qaxayay ayaa gaari ga'da ah oo dowladda leedahay ayaan howlaha guud isagoo u yaalay ayaan ilmihii kula qaxay marka waxaad leedahay gaarigaasi aan dowladda ka qaatay halleega cafiyaan leedahay halleega cafiyaan leeyahay gaariga waxaan idinka codsanayaa oo si kor dheer iyo hadal gaaban baan idin leeyahay hallayska ka cafiyo gaarigaana gaarigaan anigu tuuga ugu talagalay ma ahayne waxa way nafsadaada ku badbaadsanaysa nafsadayda ku badbaadiyo boqolaal baan ku badbaadiyeyba ilmahaas waa ku qaaday caruurtii kulli dad ciidii camarka ka badanna waan ku qaaday lacagna kama qaadan waxaan tegey Ethiopia meel shilaaba la yidhaahaan tegey niman badan oo reer Sheekh Saxaaq oo soo mari jiray beledweyne soo mari jiray adaa ku soo qaaday ayaan halkaa ugu yimid 3 bilood bay joogi jireen shilaabo 3 biloodna waxay joogi jireen Qabidahar 3 bilood waxay joogi jireen Dhagaxbuur gabadhaan gartay oo aan isku reernahay oo ay qabeen ayaan gabadhii iri iiga dadkan ana imka u tagay oo ay sideen markii hore waa gartay gabadhii waxaan ku iri iiga waan u tagay lugahayga ugu tagay waxaan ku iri soo dadkan ay idimay soo aamineen dadka yagii ma aha anna ii aamin oo halkan ay ka kaxaynaya 2 saacadood baan sii wadaya dadkiini baan idin geynaya waa gartay dabeetana dadkoodii baan sidii ugu geeyay qarara meel ay yiraahaan geeyay sidii baa dadkaasi ku heshiyay sidii bay ku soo bixi jireen halkan hadduu iga maqlayo nin amar jeclaa baa jira jidka gaari kaga xumaaday dabeetana niman shufti ay heleen aan ka fufuray gaariguna jug buu hayaan xariga u suray waan geeyay ilaa meeshii uu doonayay aan geeyay marka weeye sidii ilaahay caawiyay anna ilaahay way caawiyay dadkii gaariga lahaana caawiyay marka waxaan doonayaa maanta anoo waayeelba ah tuuga anigu gumaan tala geline lafaygan ku baxsanayay iska kaya cafiya habeenka akhriya habeenka dowladda baatantahay horta maxamed yuusuf ayaa wuxuu caddeeyey in gaari ga'da ah oo dowladdu lahayd howlaha guud uu ka qaatay xilligii dagaalada sokeeye isagoo la cararayay xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo ehelada qaar ka mid ah haddana waxa uu caddeeyey in arrinkaasi oo aqaan ah in layga cafiyaan doonayaa buu leeyahay wax aniga aan yani awoodo oo kale ma jirto marka maxamed wax intaa dheefsaysan oo aad dhibaato geysatay ma jirto miya waxa aan geystay habeenka aakhira layma soo wixii aan geystay waxaan oran lahaa wari cafiya waa gartay sida maanta aan u leeyahay cafiya gaarigaas bis baad qaaday gaarigaas igu soo bayray gaarigaasna lafaayigii baan kula baxsaday dowladana lahayd dowladda hala ahaatee dowladdu waa iyo waa dadweynaha waa runta dowladda waxay masalaysaa dadweynaha marka shacabkiyaa leedahay cafiya marka waxaan halkan ka jeedinayaa oo kale talaan ka soo jeedinaya dadka guryaha haysto dadkii lahaa ka haysto aday kuu taallaa maalinta aakhiro aday kuu taallaa micnihii alla unbaa kaa dambeeya adiga gaari dowladeeda aad looysaa cafis aan cabsanayaa dowladdii iyo shacabka marka dadka kale guryaha caadiga haystay dadkii guryaha caadiga haystay beeraha haystay baabuurta kale ee shacabka haystay boosaska dhacay wax walba sameeyay hantida dhacay waxaan leeyahay dadkan cafis weydiista haddaydan wax bixin karahayna ay wixii ku bixeenna cafis weydiista wixii aad gacanta ku haysaanna dadkii lahaa u celiyo cafis weydiista intaasina way iga talo yacnaa waxaad leedahay isxisaabiya intay goorigoor tahay halkan waxaan ka salaamay dardaaran uga diraya ninka la yidhaha cali mahdi ninkii madax ninkii ugu odaysanaayay madaxda ahaa weeye dalka joogay dadka ha kala furdaamiyo maanta iuusan waxba odhanin xad baa meel ii yaalle ha kala furdaamiyo toobad baan weydiisanaynaaye isaguna toobad ha weydiisto iyo ummadii kaleba wixii madaxa macnaa hala dadaala ka wadaa nabadda ha laga shaqeeyo insha allahu tacaala kaasina wuxuu ahaa maxamed yuusuf xasan oo jooga dalka jarmalka ma laga yaabaa inaad dalkii ku noqoto waa ku noqonaya mooyaane dalkan wax baraya waxaan doonaya dadkayga iyo dalkayga haddaan moodayo markii hore dhibkan inuu igu dhacayo dalkayga kama soo baxayn oo ku dhiman lahaa sababtoo ah waxaan moodaya aduma ciidamada ahaan jirtay ciidamadan ahaan jiray xilligee dee waxaan ahaa ciidamadii ugu horreeyay ee dalkaba loo qoray ee sharafta lahaa dabeetana waxaan arkay qabyaalad iyo daarood iyo ficiis iyo wax la sheegayo dabeetana waxaan sidii war maxaaba daaroodkan iyo badihiis iyo abuurihiisaba ku geliyey marka waxa weeye
maanta tii haddaan moodaya sidaan maanta aan u caqliyaystay aan moodaya dad shisheeye inay dowlado shisheeye kusoo duuleen dee dalka waan difaaci lahaa waa garta laakiin maanta waxaan ogaaday in dalkayga ilaa waktiga ah inaanan annaga xaggayaga hayna bilaayo kale uu dayacan yahay marka waan imaanayaa marka maxaad ka mid ahayd ciidamada lugta badda cirka waxyaabo badan baan ka mid ahay sirtaas waa taasi waa sir sirta ciidamadana dowladdan si toosa ula xiriirayaa waa garta security baa u doe waa arrin sira wey arrin sira wey qoraal ahaan baan usoo dirayaa iyo arkana okay marka yaa ehladii qaraabadii iyo asxaabtii inta ka salaamaysaa gobolada iyo dalka way fara badan yihiin anigu dadkayga oo dhan baan wada salaamayaa aad iyo aad baan u wada salaamaya gaar ahaan buudoodle yaa ka salaamaysa buudoodle dhammaantood waa meeshii aan ku dhashay ma kala jecli waa walaalahay waa tolkay waa inan iyo wiilkiis dhalay baan wadanahay dhammaantood waxaan salaamayaa isimada dhammaantood baan wada salaamayaa gaar ahaan iyo khaas ahaan midna odhan maayo boqor cabdilaahi dabagooye garaadka guud suldaanka khaalidka garaadka bahar same garaadka jaacsiya garaadadoo dhan aniga way isku koyaha dhammaanba waan salaamaya dadka siyaasiyiinta ah dadkayga ah intaa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed somaliland dhammaanteed waan salaamaya dadkaas waxaan nahay dad wada dhashay oo isku deegaana oo isku mida xagga hooye waxaan kala walaalahay isaaq aabbahay xagga hooye isaaq bay ka walaalaayeen ana carruurtayda isaaq baa dhalay waxa laaliyo waxaan ku kala duwannahay sulbaantii isaaq waa walaalo saasaad ka wadaa saasaan ka wadaa waxa weeye macdaba ka daa waxa weeye meeshana taabtaaba waa meel dad aan wax isu wadanahay weeye marka waxa weeye habash qabyaalad inoo tali mayse qaran baa ka wanaagsan qaran baa ka wanaagsan sida maanta qofna meel keligii ma taagnaan karo qofna keligii meel ma cuni karo xoolo aadan maanta aadan cuni karahayna meel aadan haysan meel aad ka cuntana ma cuni kartid sax wa waxaad xoolahaaga cuni kartaa meel nabadgelya aad ka cuni kartaa hadaad xoolo leedahay haddii aad waxla adahay xitaa meel nabadgelye ayan ka jirin waxba kama helaysid صح وياه marka waxa weeye waan salaamaya dalkeena Allah inoo hagaajiyo dadkeena Allah inoo toosiyo xanuunada yaacaya Allah inaga qabto aad iyo aad baan idin salaamaya salaam kaasina wuxuu ahaa maxamed yuusuf oo ah odayaasha waaweyn ee dalka Jarmalka ku dhaqan oo ka mid ahaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya oo isagu afis weydiistay shacabkii Soomaaliyeed kadib markii xilligii la soo qaxayay uu gaari gaada ah dowladda lahayd uu ka soo qaatay wasaaradda gaadiidka kadibna caruurtiisii xaaskiisii uu ku qaxiyey waxaana uu yiri gaariga dowladda magaca ku qoran gaada waxaa ka weyn shacbiga Soomaaliyeed ayaa iskale wixii dowladda ay ugu shaqeynayso waa shacabka marka wuxuu yiri anigu afis baan arrintaa ka weydiisanayaa shacabka Soomaaliyeed cid kasta oo ila mida madaxweynaha dalka xukuma oo dhanba iyo baarlamaankii kulli waa sheegtay dhammaantood ba xulli xafis baa weydiisanaya idinkana waxaa kale uu sheegay in loo baahan yahay in qof walba wixii uu haysto oo hanti islaameed inuu iska dhiibo oo isxasaabiyo waa boqorka bartamaha uu ku wareegsanayay dalka Jarmalka aad iyo aad baad mahadsantiin